Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iminkana la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo qoray faallo uu ugu magac daray haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fisha. haddaba faaladan uu qoray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa daawadayaal warbixintan idinkugu soo gudbi doonaa. ha yeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawade kaa dalbanaya oon kaa codsanaya inaad muuqaalkan like saarto, la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkaan soo gelino. sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa faallo uu qoray waxa uu ciwaan kaga dhigay haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fisha. waxay ahayd 15 Agoosto 2018 markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu magacaabay ku-xigeenka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. waxay ahayd mas'uuliyad culus iyo shaqo igu cusub, balse waxaa ii muuqatay muhiimadda ay leedahay shaqada sirdoonka qaranka oo ah ilaalinta nabadda iyo danaha qaranka, iyadoo bartilmaameedka ugu horeeya uu yahay helidda xog sugan oo ka dhigi karta sirdoonkeenna mid la isku halayn karo oo dhammaystiran. kolkii aan xog urursaday una fiirsaday shaqada iyo waajibaadka horyaalla hay-adda, waxaan fahmay 3 arrimood oo aad muhiim u ah. waa tan koowaade, halka dalka dhismo ka hormaro lagana cabiro awoodiisa in ay tahay tayada sirdoonkiisa. waa tan labaade, waxaan u tegay saraakiil xigeenno iyo xubno kala duwan oo leh aqoon iyo xirfad la soo dhisayay tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1970 kuna hubeysan daacadnimo iyo daljacayl. waa tan saddexaade, waxaan la kulmay dhalinyaro karti iyo aqoon leh oo u baahan isku dabarid iyo dib u qaabeen si ay uga hortagaan ururada argagixisada iyo kooxaha kale ee abaabulan ee khatarta ku ah amniga dalkeenna. hay-adduna awood buuxda ugu yeelato dhexgalka cadowga iyo helista xogahooda. saddexdaasi isla jaanqaadkooda ayaa keenaysa in nabadda iyo barwaaqada shacabkeenna ay ku xiran tahay horumarinta iyo tayeenta sirdoonka qaranka, sababtoo ah dal aan lahayn amni la isku halayn karo marna ma gaarayo horumarka iyo barwaaqada uu hiigsanayo. tilmaamaha iyo dardaaranka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee aan shaqada ku bilaabay waxaa saldhig u ahaa gaarista 2 yool: soo celintii tayada iyo awooddii sirdoonka qaranka si ay tartan ula gasho hay-adaha dhigeeda ah ee gobolka iyo qaaradaba, ulana jaanqaado dunida sirdoonka casriga ah, isla markaana u gudato waajibaadka ka saaran ammaanka qaranka ee gudaha iyo dibadda. tan xigtana waxay ahayd soo celinta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ee ku qabaan sirdoonka qaranka, waxayna ka bilaabanaysaa xamar oo nabad ah oo degan, taas oo ah arrin mudan in ahmiyad wadareed la wada siiyo. dhanka shaqada waxaa madaxweyne Farmaajo walwal iyo fakar joogto ah ku hayay tirada dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha qaraxyada iyo beegsigii tooska ahaa ee lagu ugaarsan jiray haldoorkii shacabka, iyadoo bil walba la horgeyn jiray ee tirakoob qeexaya xaaladda amniga dalka, gaar ahaan caasimadda oo ay bilaha qaar dhici jireen wax ka badan 85 fal dembi oo u kala qaybsan qarax, beegsi toos ah iyo burburin hanti, ayna ka dhalan jirtay dhimasho, dhaawac iyo burbur hanti. dhimashada dharcadda ama ilaalada shacabka waxay noqotay qorshe miro dhalay oo noqday saaxiibka koowaad ee bulshada. tababar heerkiisu sareeyo iyo tayeen lagu sameeyay dhalinyarada waxbaratay ayaa keentay in ay dhismaan dharcadda ilaalada shacabka. waxaa xasuus mudan asgari ka tirsan ilaalada shacabka in loo soo bandhigay fursad ah in loo magacaabayo guddoomiye degmo. asgarigaasi wuu diiday dalabkaasi isagoo ku jawaabay
ilaalada shacabka waa shaqadii ugu wanaagsaneyd ee aan qaranka u qaban lahaa, waana ilaalinta nafta iyo maalka bulshadeenna, taasoo muujinaysa miisaanka iyo macnaha ay agtooda ka leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed sugidda amniga bulshada iyo tan qaranka intaba. Qorshe isku tashiga ayaa jiray, wuxuuna ahaa qorshe aad u ballaaran oo saldhig u noqday sidii loo heli lahaa hay-ad ku taagan wixii laga soo dhex dhaliyo maskaxda shiilka dhalinyarada khubarada ah ee la carbiyey, kuna hoolan sidii afkaar curintooda loogu rogi lahaa shaqo raadkeeda ay dadku arkayaan oo qaranku u aayo. Qorshahaasi baa keenay in hangool la iskaga qabto wax soo saar aynan ummad ahaan curintiisa waxba ku lahayn ama la falgalkiisa aanad ku filnayn, kaasi oo ku tiirsan kuna xiran taakula shisheeye oo si joogto ah kula nool. Tan waxay ahayd taladii ugu habbooneed ee la qaatay. Taladaasi waxayna gaarsiisay in hay-adda sirdoonka Soomaaliyeed lagu hago aqoon iyo khibrad ay curiyeen ama la falgaleen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo jecel sidii uu dalkooda u horumari lahaa. Qiimeynta 3 bilood walbaba waxaa soo hagaagayay jawiga nabadeed ee dalka, waxaana markaasi isdhimayay tirada dhimashada ka dhasha falalka kala duwan ee argagixisada, wuxuuna gaaray hoos u dhac ballaaran oo bilaha qaar dhici jireen wax ka yar 9 fal dambiyeed ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen tiro 90% ka hooseysa sidii sanadihii hore ay ahayd. Madaxweynaha iyo madaxda kala duwan ee qaranka waxay taasi uga dhigneed farxad iyo horumar, waxayna dhiirigelin joogto ah la garab taagnaayeen shaqada wanaagsan ee u taagan yihiin hay-adaha amniga qaranka guud ahaan iyo hay-adaha sirdoonka ee kala duwan. Dagaalkii qaboobaa wuxuu sirdoonkoonu ahaa mid dunida ka tilmaaman oo dunida ku tashato, saameyn weynna ku lahaa siyaasadaha dunida iyo xiriirada kala gedisan ee caalamka. Dhowr dowladood oo qaaradda Afrika ka tirsan oo xilliyo kala duwan aan u kulannay ayaa nooga sheekeeyey sidii sirdoonka Soomaaliya uu sabab ugu noqday dhismaha dalkooda iyo dhismaha hay-adda sirdoonkooda, hadday tahay tababarid iyo qalabeenba. Mid ka mid ah hogaamiyayaasha hay-ad sirdoon oo dal Afrika ka socday oo xamar igu soo booqday ayaa shirkeenii ku furay in xarunta NISA uu ku qaatay tababarkiisii koowaad markii la aasaasayay sirdoonka dalkooda sanadkii 1979. Wuxuu mar kale naga codsaday inaan siino tababaro dhanka la dagaalanka argagixisada ah. Hay-adaha sirdoonka caalamka kuwooda ugu saameynta badan waxay sheegaan in NISA ay ka mid tahay hay-adaha ugu awooda badan qaaradda Afrika xagga la dagaalanka argagixisada, halka gobolka Geeska Afrikana ay NISA hormuud u tahay dhanka la dagaalanka argagixisada, laguna kalsoon yahay xogtooda iyo markaasi khibradooda. Muddadii aan agaasimaha guud ka ahaa hay-adda sirdoonka qaranka 3 sano ee u dambeysay, waxaa booqasho rasmi ah noogu yimid Muqdisho ilaa 8 agaasimo guud oo ka kala yimid dowladaha ugu saameynta iyo awoodda badan dunida iyo kuwa qaaradda Afrika oo aan qaarkood derisnahay ama isku khatar amni ah wada leenahay, iyagoo si qoto dheer u fahamsanaa awoodda iyo khibradda ay leeyihiin saraakiisha sirdoonka Soomaaliya. Xusuusteeda waxaanan ka tilmi doonin sheekooyin yaab leh oo ahaa kuwa dhaliyay guulo saameyn weyn ku yeeshay nabadda iyo deganaanshaha. Dabcan dhammaantood ma soo qaadan karo, balse haddii aan soo qaato mid iyo labo, waxaan ogaanay sargaal ka tirsan hay-adda in uu si qarsoodi ah ku guursaday gabar xubin ka ah shabaab una qaabilsaneyd dabagalka sirdoonka Soomaaliya. Sargaalkani wuxuu ahaa sargaalkii labaad ee haweeneydaasi ay sidaasi ku guursato. Ujeedku wuxuu ahaa si ay gabaad ay magaalada ku joogto uga dhigato, shaqooyinkeedana fursad ugu hesho, marka dambana ay qaarijiso. Sargaalkii waxaa la faray in uu caadi iska dhigo lana noolaado si buuxdana uu u soo wada helo xogta shabakadda ay la shaqeyso. Howlgalkaasi wuxuu sahlay in la soo qabto 12 ka tirsan maafiyada shabaab oo meelo kala duwanna shaqo ka waday, waxaana loo gudbiyay baaritaan.
kadibna markii lagu helay dembiyo ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukunno kala duwan. waxaa iyana jirtay hooyo xaafad joog ah oo dhammaysatay shuruudihii xubannimada ee kusoo biirista sirdoonka, kana mid ahayd dharcad tababar loo diyaarinayay. hooyadani markii ay akhrisay warqadihii laga rabay in ay saxiixdo ayay mid ka mid ah xafiiskii ay ku saxiixi lahayd soo gashay, waxayna ugu tagtay wiilkeeda oo sugaya in uu ka saxiixo warqadda, taasoo yaab ku noqotay hooyadii. laakiin wiilka waxaa loo sheegay isla maalintaasi hal saac ka hor in dadka liiskooda loo soo gudbiyey ay ka mid tahay hooyadiis, taasoo lafteeda farxad gelisay oo ah in hooyadiis oo aan shaqadiisa waxba kala socon ee waddo markaasi sharci ah ku ogaatay meesha uu ka shaqeeyo wiilkeeda. horumarka adeega NISA waxaa lafdhabar u ah shacabka qaybihiisa kala duwan oo qaarkood wadamo kala duwan ku nool yihiin, kuwaasi oo sabab u noqday guulo waaweyn oo uu gaaray sirdoonkeenna. sidoo kale dunida oo dhan waxay isla qirsan tahay in sirdoonku uu hadafkiisu gaari karo marka uu haysto madaxweyne hagaya oo leh qorshe qaran oo fogaan arag ku qotoma. waana sababtuu madaxweyne Farmaajo mar walba rafiiq iyo wadaay ugu noqday ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliyeed. waa hubaal in hamiga ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan helitaanka dowlad cagacda ku taagan ay qayb ka tahay horumarinta iyo tayeenta laamaha ammaanka iyo sirdoonka qaranka. waxaa kale oo hubaal ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku farxayaan kor u qaadida awoodda iyo jiritaanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. marka aad wanaag fasho, niyad sami la timaado, dad aqoon iyo xirfad u lehna howsha la kaashato, waxaad filanaysaa natiijo wanaagsan oo waxtar u leh qarankaaga. qoraalkaasi waxaa qoray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iminkana ku magacaaban la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen janalka Xogta Media. haddii aad daawatay like inoo saar, subscribe inoo saar janalka Furaga Mulalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan teeda kale inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.